سبن كوكولا هالله واسيدي مقالكو سويرة ديجان كوديجي واسيدي ياركو سوالا درتو كوسودي واسيدي فانكو أنا كودم تصوفي ستي واسيدي تلذو runtii maanta waa maalin weyn waa maalinta loo asteeyay ama ay ku suntan tahay maalinta dhirbeeridda qaranka oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland 5 sano ka hor u asteeyay runtii dhirtu waxay muhiimad u leedahay nolosheenna dhinacyada laga eego nadiifinta hawada cuntada iyo hadhka muddada 5 sano ah wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimiladu waxay soo beertay 1 milyan oo geed wax ka badan guud ahaan dalku inta gobolada dalka oo dhan waxa laga xusayaa maalinta dhirta Soomaaliland runtii waxa ku diyaarsan gobolada Soomaaliland oo dhan si u dhan yihiin waxa ku diyaarsan dhirtii loogu talagalay in lagu dhireeyo gobol kasta magaaladiisa iyo degmooyinkiisaba guud ahaan laga soo bilaabo sanaag sool ilaa meesha la yiraahdo awdal ama selal meel walba waxay ku diyaarsan tahay dhirtii loogu talagalay inay runtii lagu beero wasaaradda deegaanku waxay runtii ugu talagashay sanadka bishan April in la beero 250,000 oo geed in la beero oo ku diyaarsan 13 nursery oo ku kala yaala gobolada dalka قلبا ميرسي صحراء كوا وفريد تعبك صوصاري أيا جيت سوق سوق باهدي ساكا جرن لاين sida hore loo soo sheegay 5 sano ama 6 sano u dambeysay 1 milyan ilaa 100,000 oo geed ay qaybisay oo 70% ay baxeen oo wax ilaahay loogu mahadnaqo waxa kale oo runtii sharaf weyn maanta noo ah in 13 nursery oo dalka oo dhan ku yaala ay diyaar ku yihiin ilaa 350,000 oo geed qorshahuna uu ahaa sida agaasimu sheegay in 250,000 oo geed April la qaybiyo laakiin maadaama biyo yaraan iyo roob la'aan ay jirto cid kasta oo isbixin karaysa oo waraabsan karaysa inay naga diyaartay dhirtaasi waxaan u mahadnaqaynaa dhammaanba maamulada gobolada iyo degmooyinka khaasatan meeyarada oo runtii xiriir fiican oo dhammaantiyo una dhex maray iyaguna u diyaara qaarkoodna ay waraaqo rasmi ah soo qoreen official wasaaradda soo qoreen oo u diyaara inay degmooyinkooda dhireeyaan aad iyo aad baan runtii ugu bogaadinaynaa adduunyada maanta waynu ognahay in badan baynu ka hadalnay cimilada isbedeshay saakadan ilaa shalay ilaa wiigan oo dhan waa arkaysaan waxa South Africa ka dhacay waliba dhinaca xeebta wixii ka dhacay dad badan baa ku dhintay ku guriyo waayay ummadan baa ku leeyahay halka sababtuna maxay tahay roob isdaba joogaanay filayn oonay markii hore fili jirin ayaa ku dhacay duufaano kuwaynu halkan ka sugayna xaggaas ka dhaceen adduunyaduna sida South Africa maanta wax leeyahay waa climate change ka isbeddelka cimilada ayaa nagu dhacay maanta waynu arkaynaa inagu haddaba aad baa dhirta looga hadlay anigu waxa kaliya aan ku kabaya waxa weeye waxa farxad horta noo ah inay waqti kastaba waxa socda baaritaan ama horumareed oo ah sidee loo dhirtan aynu badbaadinayna sidee dhuxul dadku u heliyeen oo shacabku dhuxushu ay doonayeen u baahidu u qabeen u helaya dhirtina u badbaadaysa curriculum-kana in lagu daro oo wasaaraddu ku darto tacliintu ilmaha uu ku soo barbaaro ayaguna wayna xooga saaraan ilma aan garanaynin geedkiisa loo beeriyo siduu yahay wuxuu yahay curriculum-ka waa in loogu daraa ilmaha standard 1ka waa in loogu daraa sacabkaaga geed baxa ku beer waasad nololeede si u cagaariyo ildoon ogada u saarto ka hortaga saxaraha fido
faraxsannahay inaan qaabkii hore ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimiladu ay dhirta u bixin jirtay 15 Abriil oo ah maalinta dhirbeerista qaranka in wax laga bedelay halkii ay wasaaraddu ka bixin jirtay dadweynaha iyo gacanta wasaaradda aan waxba u dhaxayn jirin in maanta golihii deegaanka ay awoodiisi gaadhay inay iyagu u dhaxeeyaan oo dadweynihii soo doortay iyagoo metelaya ay nagala wareegaan dhirtii oo ay runtii iyagu dadkii insha Allah gaarsiin doonaan institutionkii dawladda gaarsiin doonaan iskuuladii gaarsiin doonaan qaybihii kala duwanaaye bulshadana ay gaarsiin doonaan halkan waxaan kaga wareegnay 30,000 oo geed oo isugu jira intaas oo nooc uu sheegay kii qurxinta iyo kii harka iyo kii midhaha intaba runtiina sanadkan sidii hore si ka duwan baan rajaynaynaa inay noqdaan oo haddii markii hore 80% dhirta la beeraa ay dayac heli jirtay maanta inay 80% amba 90 ay badbaadaan oo halkii loogu talagalay geed walba aanu gaarsiino sacabkaaga geed baxa ku beer waasad nololeede ee la xusi jiray ama la isku baraarujin jiray dhirbeerista ama la iskala xisaabtami jiray kobcinta dhirbeerista ee bulshada annagoo ah dawladda hoose waxa aanu bishii hore ka codsanay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada in aanu la wareegno 30,000 oo geed oo aanu doonayno inaanu magaalada Burco iyo IDB-yada ku beerno si aanu u horumarino bilicda iyo cagaarinta iyo isbeddelka cimilada magaalada Burco marka labaad waxaanu ka duuleynay muhiimadda ay u leeyihiin geeduhu nolosha oo aanu baraarujinta ku sameeynay ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa sheegay geeduhu waxay qayb weyn kaga jiraan nolosha bini'aadamka bale dhirtu waa nolosheena ka hortaga saxaraha fido saaka wada beera keenu neefsado dhirtani saxa ku kaalmayso samadiyo daruurtunayne madarka soo nuugto maynagaan sadriga ta ku hay oo la socon geedka marna arag sugu saaran yahay saaca iyo dooga marna sala bogsiyaha dawada laga samaynaayo oo cudur xiisaarila saatirku geliyey maynagaan sadriga ta ku hay oo la socon geedka warkaysaan waa maalintii mudan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu asteeyay inay noqoto bal ahmiyadda dhirta in la beero inay weynino maalinta inaan dhirtaynu beerno cimilo fiican baan leenahay waxaan rajaynayaa insha Allah inaan maanta ahmiyadda aan xooga saarno wasaaradda bariyahan dambaba waxay heegan ugu jirtaa si u horumarin lahayd soo saaridda dhirta oo marka dhir inta taasoo dhir ayaan sanadkan diyaarino ugu talagalnay oo noo taala waxaan aad iyo aad si gaar ah ugu mahad celinayaa barasaabka gobolka oo hadday xitaa jimco tahay oo u baahano deegaanka iyo ma geed baa saa la leeyahay han idhaahna ama buur waxba sidaas saacadaaba ku imanaya aad iyo aad mahadnaq markaa wasaaradda markaan ka tashanay waxaan isla garanay awaarska inaan ku nidhaano mudane gudoomiye waad mahadsan tahay babada hawada jeedayo sabagane cawda insan keenu neefsado dhirtani saxa ku kaalmayso samadiyo daruurtunayne madarka soo nuugto maynagaan sadriga ta ku hay oo la socon geedka xilku wuxuu saaran yahay ciddii wax garanayso xilkani saaran yahay ciddii wax garanaysa hadday kacdo oo cidda wax garanay ay gaarsiiso waxa weeye dhulkuna waa badbaadayaa inaguna waan badbaadaynaa aqalada horteeda iyo dariiqyada iyo dibadda inaan wada baxno weeye balintaana ay u dhaxayso Boorama iyo Camuudna waxa weeye gacan aan saarno nin walba geedka ku yeesho waxaan sidoo horta aad u amaanayaa inaan hortiiba waxba dhaqdhaqaaq weyn meeshan kama dhicin xagga waxa sheegay wasaaraddiisa in wasaaradda ninkaas maanta ugu horeeyay hadda ninkeedii helay waa ka waxaynu sheegaynaa aynu baashaha gudoomiye maanta aynu go'aansan gobolkaasi inuu gobol cagaaran ka dhigno si dhab ah tan Camuudiya halkana waan idin ballan qaadayaa la weydiisanayna anaguna gacan abkaaga geed baxa ku beer waasad nololeede aynu wasaaradda isu duwaashiina kala wasaaraddu walba laga rabaa in xafiiskeeda dhirayso
waa lagu dabagelayaa waxa weeye qof walba horta intaynan joogtaa aan iska bilowno oo horta qof walba ku talagal maanta inaad geed qaado oo adigu beerato wixii kale common inaynu ku dabagalo dadka in waxyaanu soo celino bal caruurteeda lafteeda aynu war bal inaan walba intaad geed beerato geed ka xanaanayso oo waalidka laftiisu uu ilmihiisa ku sheegay war geedkaaga ka waran sanbabada hawada jideeyo subagane cawda insankanu neefsado dhirtani saxa ku kaalmayso samadiyo daruur dunayne madarka soo nuugto maynaga sadriga ta ku hay oo la socon geedka miyaydan sir iyo caad ula socon tuugada dinka miyaydan siduu yahay arkay saaka jawiyeenu miyaydan berri saadambana saadin karahaynin mise sabadan baynan lahayn kululku saamiy sacabkaaga geedbaxa ku bee waasad nololeede xaruntii wasaaradda deegaanka ee tarminta dhirta ee gobolka Sool degmadiisa Laascaanood waxaa lagu jiraa maalinta dhir qaybinta 15 Abriil taasoo sanad walba laga qaybiyo dhammaan gobolada Soomaaliland taasoo wasiiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi marka dhirtan halkan baanu ku beernay waxaan rabnaa saaka halkan inaanu ku qaybino waxa saaka halkan loo taagan yahay sidii looga qayb qaadan lahaa beerista iyo qaybinta dhirta loogu talagalay gobolka Sool in lagu cagaariyo saaka waxaanu bixinaynaa fayskii koobaad kaasoo loogu talagalay in lagu beero laamigan hadda xariga saaka isla saakadan xariga laga jaray ay hirgelisay dawladda hoose ee halbowlaha degmada Laascaanood qaybtii aan ugu talagalay qaybta dhiraynta waxa bixinaya kharashkeedu saaka bixiyay kharashkeedu shabaagta bixiyay dawladda hoose oo maayirku ugu horeeyay maayirku hogaaminayo si aynu helo magaalo qurux badan qabow saxale caafimaad leh waxa la inooga baahan yahay inaan dhirta ku beerno marka koowaad waxaan mahad Ilaahay ka soo mahadnaqayaa isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo shaqo adag u haya bulshada gobolka Sool ee uu wakiil uga yahay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada hawl adag buu hayaa isuduwuhu sida uu sheegay maanta anagu dawladda hoose ahaan waxaanu halkan u taaganahay oo aanu qarashkeedii bixinay inaanu ku beerno laamiga halbowlaha ee magaalada Laascaanood dhexmara 200 geed waxaynu u baahannahay inaanu shacab iyo dawlad hoose iyo heer gobolba inaynu iska kaashano saynu magaaladeena u cagaarin lahayn isuduwihii wasaaradda waa aragnaa waxqabadka muuqda waa intaasoo laga sii kordhiyo waana qurux badan tahay inaynu helno magaalo qurux badan iyo gobol qurux badan iyo guri qurux badan waa aragnaa dhir qurux badan inay halkan taalo oo laga shaqeeyay looguna diyaar garoobay in maalinta lagaga qayb galo mana noqonayso maalintii koowaad ee aan halkan imaado dawladda hoosena waa uga mahad celinayaa iyo golaha deegaanka iyo maayirkaba ballanqaadka uu maayirku qaaday ee ah in dhirta ugu horeysay ee wadooyinka lagu beerayo isagu shabaagtii iyo bixinayo aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay miyaydan siduu yahay arkay saaka jawiyeenu miyaydan berri saadambana saadin karahaynin mise sabadan baynan lahayn kululku saamiy umad yahay tirada seexisee xididada u saartay idinka abaaraha u salam soo noqnoqodkoode in sidana ay noolato sadiyo deeq buuxdo in subxaano ay leedahay wada sujuudayso miyaydan sir iyo caad ula socon tuugada dinka miyaydan siduu yahay arkay saaka jawiyeenu miyaydan berri saadambana saadin karahaynin mise sabadan baynan lahayn kululku saamiy waynay ka faa'iidaystaan ayna beertaan gaar ahaan waxaan ku sii boorinayaa degmada Ceergaabo iyo degmada Ceelafreyn
oo dhirtu tiriibkan dhex taalo 10 kun oo geed baa ceelaf yaalla inay dhirta beeraan way kortay magaaladu way aad bay u fiican tahay inay ka faa'iideystaan oo ay beeraan oo ay maalinta qiimaha leh oo dhirtu u soo baxdo ay ka faa'iideystaan oo bilaash lagu siinayo dhammaan waan ku dabagelaynaa haddii ilaahay idinka ka dhigo ujeeddada la leeyahayna waxa weeyaan in dhulka la dhireeyo waxa la geliyaa dhirta tacab badan bay wasaaraddu gelisaa waxaa loo baahan yahay iyadoo la sooman yahay oo hadalkana loo badan yaho aan gaabin doono ciddii nasiib u yeelataa inay dhirtaa ka qayb qaadato in ay dhirtaasi inay dhiman in dhulka la dhireeyo innaguna waxaa waajiba inaan tacabkaa khasaarayn ee aynu dee halkaa ilaa waxaanu iskama soo bixine hawl bay ku soo baxeen oo kharash bay ku soo baxeen oo dadaal bay ku soo baxeen oo shaqay ku soo baxeen innaguna inu wixii dee maweelayno oo hagaajinno ayaa inagu waajiba shacabigeenna waxaanu u sheegaynaa isku suuroobi maayaan inaynu riya ku dhaqanno iminka riyiiba ka tagto idii bay maraysaa oo loodii bay maraysaa meeshii miyi iyo magaalo de midna maaha markaa miyina maaha magaalona maaha suuroobi mayso ama magaalo qurux badan baynu ka dhigaynaa ama miyaynu ka dhigaynaa labada mid wey annaga qorshe wuxuu noogu samaysan yahay inaynu magaalada qurxinno oo magaalayno oo guri walba geed ku horridno oo aynu kulligan gacmaha isqabsanno oo ay cerkaaba ugu qurux badato dee dalka ayaa marka horta dhirtu manaafacaad badan bay leedahay waxayna jecel lahay inaan wasaaradda inta laga qaado meel la iska dhigine ayna ku qalinine qof kastoo geed qaadaa inuu beero oo geedka isna wuu manaafacaadsanaya ummadduna way manaafacaadsanaysaa waad garan kartaa magaalo markaad soo geshay hadday dhir leedahayna indhahaagu caafimaad bay dareemayaan hadday magaaladaasi tahay meel bilaageedana waxaad moodaysaa inaad soo gashay dhul saxaro ah horena waanu qaadanay 50 geedoo hore aan hore u beeray saakana waa qaadaya 50kii hore way baxeen dhowr iyo 20 kalena haddaan qaadayaa insha allahu inaanu daryeelno wasaaraddana uga mahad celinaynaa inaanu daryeelno